maanta meesha la marayo waa meel fiican laakiin waa meel u baahan shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan oo ay ku baraarugsanaadaan in dalkooda iyo badooda lagu yahay duulaan. waxaan halkaan caawa kulan ku yeeshay agaasimayaasha guud, maareeyayaasha iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan oo ka arrinsanayay sidii ay u garab istaagi lahaayeen xukuumadda dan qaran iyo aragtida badbaadada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. sida aad ka warqabtaan dawladda Soomaaliya waa lagu soo duulay, waxaa ku soo duulay cadow aan xin ee Ethiopia. waxay go'aansadeen in qayb ka mid ah baddeena iyo dhulkeena ay qaataan. waxay ahayd gardarra caalamka ay la yaabeen. dadaalo badan iyo juhdi badan oo dawladda ay bixisay waxaa u suuro gashay in dawladda Soomaaliya diblomaasiyad ahaan ay u difaacata dhulkeeda iyo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda. maanta meesha la marayo waa meel fiican laakiin waa meel u baahan shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan oo ay ku baraarugsanaadaan in dalkooda iyo badooda lagu yahay duulaan. meel shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay ogaadaan in ay isku duubnida muhiim tahay. waxaan taagannahay isgoys shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in garab buuxa ay siiyaan madaxdooda qaranka. waxay la taagan yahay isgoys u baahan isku duubni ebit tii ugu wanaagsanayd inaan isku duubnaano si damaca guracan ee dhulboobka ah ee dhuldoonka ah looga gudbo loogana guuleysto. dadaalkaas waa soo socday 8 bilood ee la soo dhaafay. haddana laba laabkiisa ayaa loo istaagay oo la wadi doonaa. dhammaan shaqaalaha rayidka, shacabka Soomaaliyeed, madaxda qaranka, isku duubni guud waxaan ugu gudbi doonaa ficilada guracan ee nalala doonay inaan ka gudubno, inaysan na turunturaynin, inaysan naga weecinin la dagaalka khawaarijta, inaysan naga weecinin in dhulkeenna iyo baddeenna iyo xuduudaheenna iyo madax bannaanideenna iyo gobnimadeenna iyo sharafteenna inaan difaacano. wax kasta oo qof bila'aadan oo bixiyo ayay shacabka Soomaaliyeed mudan yihiin inay ku bixiyaan ilaalinta gobnimada, qarannimada iyo madax bannaanida dalka. ma ahan wax laga kaftamo, ma ahan wax la yaraysto, ma ahan boog si fudud loo danqi karo in gobnimadaada iyo madax bannaanidaada la farageliyo. marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta iyo goob kasta ay joogaan waxaan ku baraarujinaynaa oo la socodsiinaynaa in isku duubni ay muujiyaan, in waxyaabaha dhexdooda ah ay intay meel dhigtaan u soo jeestaan siday qarannimadooda u difaaca lahaayeen. u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas.